marka waxaanu ganacsadaa milkiilaha dahabshiil aanu sheegaynaa inuu lacagtaas si degdeg ah muddo shan cisho iskaga soo bixiyo haddii kale dee wixii ka dhaca waa la isla ogaano hanti la dhacay leedahay adigay biyo kaa daadanayaanoo meel walba ka samaysta xafiis weyn daadis waay adaa u jilicsan imika waa intay hadhow arrinkaasi wax kale isku bedel lahaa imika ha la gaadho dadkan hanti baa ka maqan hantidani ninkaa keliya kama maqna gobolkay ka maqan tahay ummadda halkan degan bay ka maqan tahay marka waxaanu leenahay dhalinyarta hadhow cid qaban doontaa ma jirto laakiin imika ha la gaadho markaa ninka dabaqa muraayadaha le saaran ee ninka buulka la shiidaya dee dabaqa muraayadaha jasabi mise waxa buulka jasabaya dhagax haddii lagu shiido waxaanu leenahay hantidaadiiba meel kasta taalla. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta waxaanu xaggani iskugu nimidnay xaaji Ibraahim Cali Aadan oo shirkad la ahaa Abshil oo ay isku darsadeen lacago kadib wax lagu dalbayay lacagahaasi oo si aan la isku ogeyn uga baxay account-kii ma garanaysaa nootaayada inta la saxeexday dhexda u ahaa inankaasi waa hadlay waa cawday cabashadiisii wax allaaliyo wax laga soo qaaday may jirin oo may dhicin annagoo tolkiya waanu maqlaynay waxaan lahayn bal shirkadaasi Dahabshiil Group ee kullay sumcadda ku dhexle Somaliland ma garanaysaa cabashada marka ay dhageysato iyadaa ka jawaabi doonta markay muddo kadib qaadatay waanu adkaysan weynay qofka bilaadanka ah ee waliba ammaanada dadka u haya ee meeshii kaliya la aaminayay ummaddu hantida dhiganaysay ah haddii ay qof wax dhex maraan oo la shiraakoobo oo boqolkiiba 49 iyo boqolkiiba 51 boqolkiiba 49 oo Dahabshiil boqolkiiba 51 Xaaji Cali Aadan oo lacagtii si sharci darro ah Cabdirashiid Dahabshiil aw account-ka nootaayada lagu wada dhigtay ee shiraakada ahayd isagoonan ogeyn lagala baxay isla markaana in la xisaabiyo oo la qanciyo oo maxkamad lagu kala baxo si sariyo si hoosaba intaba maxay ahaydana u sheegay annagu waxaan sare iyo hoos intaba ugu sheeganaa wadadka wax waa shiraakoobaan shirkado weeyaan waxani waxa ummadda maxay ahaydana lagu shiraakoobayaa waa kalsooni iyo waxa weeyaan aaminaad leys aaminaya wax lagu yahay hadday aaminaadu meesha ka baxdo qofkii la aaminayna waxba noqon maayo marka annaka oo ixtiraamayna dhawrayna shirkadaasi Dahabshiil Group waxaanu leenahay war alla qanciyo inanka yagaasoo waxa weeyaan halla xisaabiyo oo waxa weeyaan halla isku yimaado oo waxa weeyaan wadadii ay lahayd ummad shiraakowday iyo sidii loo kala baxayay wadadeedii maxay ahaydana halla mariyo